بيان علاج الحزن والاكتئاب والله بقى ري أو أف عربية لكن علمك نفسك معنى كلا أنت بدن خويا لنكرة وداوينت الحزن ووضعنا كنا شيء وحلا sadness الاكتئاب نو depression أف صومالي قملا أوروغو أما مروغو ولع والبهاء والول يعني رياضة صار له رنكر ملا وكم معنى ددوي أري كان لبضع أري اللغة العربية واسكو معنى وكل حيل ديرينون حزن جوا مروجو اكتئاب كنوا مروجو لكن في الشدة والمدة الزمنية بيكوك لقديسين اكتئابك waa murugo ka weyn xusniga xagga waqtiga ay joogayso iyo marka loo eego xagga xoog badnida ama inta ay ka xoog badan tahay ta kale luqada carbeed حزن الرجل حزنا وحزنا يعني waa murugooday weeyaan كئب الرجل أي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن ونفتي سابر برطي مروغو دراديد يوروغو يورحمو ولذلك بردولك وكلا وحيد هذان اكتأب وجه الأرض أي تغير وضرب إلى السواد حزنه مركا ندبقو صنغنا مركا مروغدو وعاطفة كمدة العواطف الإنسانية يعني واحد هذا قفك بني آدم كعواطف بولاي iska soo horjeeda oo uu ku muujiyo mashaacirtiisa ama dareemadiisa عواطفtaasi ha ahaadaan مثلا caro baqe farxad rayrayn raali ahaanshiyo firdhasho waa عواطف qofka bini aadamka ka soo fusha ولذلك عواطفته دمانتود إلهي بكو أبو ريقفك مثلا مسألة التانية إلهي قرآنك وحكولي وأنه هو أضحك وأبكى رب سبحانه وتعالى إساقا وحكا قسلية وكؤوهية إذن وحن لنا أصل المسألة حزنك إيا مرقدة إيا اكتئابك أصلها ومن فطرة الإنسان أما قفك بن آدم كأبورك سأيكمديهي إلهنا القرآن كوحكت الماما يقولنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم يوينتي لسعوتي مركي لغا سو ساري جنة وحالا يدلك ودا دقا هدي هانون حقا يدين كيما دبا إلهي سبحانه وتعالى عد الرعدة هانون كاسي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بقى كركودا ما أهانين مروغنا كركودا ما أهانين سيبا عدة الرميسي مالنت قيامها يوم القيامة بقى مروغة تونا قفك كركي سماها مسلم كا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيم بدن بمركا حزنك كقوى الرمية يسوق الشيء فطري يعقوب يمروغدي سبا إلهي قرآن كقوى الرمي موسى هو يدي يمروغدي دي با إلهي قرآن كقوى الرمي بل النبي عليه الصلاة والسلام يمرقوين صامرا إلهي قرآن كتل المامية ومرر قار كود لقر ريبيو ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إلهي سبحانه وتعالى يسوق النبي محمد له الله عليه الصلاة والسلام أيوح لي ييكم مرقق لنين dheeraynta ay u dheeraynayaan xagga gaalnimada ilaahay waxba ma yeeli karayaan ilaahay baa wuxuu rabaa subxaanahu wa ta'ala inaanay xad ama dheef ku yeelanin aakhiro la'allaka baaqi'un nafsaka la yakunu mu'miniin ama ki ilaahay wa Abu Bakr id yaqulu li saahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana asl al-mas'ala ikhwati marka waxaan leenahay xusniga muruga la yiraahdaa لكن مروغدو هدي حد كذا ضافته حنون بيسو بدشا
xanuunka marka ay isu beddesho xanuunkaas baa la yidhaahdaa depression ama ikti'aab la yidhaahdaa waa qofka oo murugada hilmaami waaya oo dabeetana psychologically fikirkiisu isbeddelo oo ay xad xanuun ku gaadho culimmada badh waxay yidhahdaan erayada ah hamiga iyo qamiga iyo xusnigu waa saddex eray oo isku macno ah laakiin wakhtigay ku kala gedisan yihiin bay yidhaahdaan xusniga waa murugo wax tegaya qamiguna waa wax markaa ku haysta murugada ka taagan humuumta iyo khawfkuna waa waxa soo socdae mustaqbalka ku saabsan laakiin culamaa'i nafsi qaybo ka midii waxay leeyihiin maya hamiga iyo qamigu waa natiijo ka dhalata xusniga ama murugada ka dhalata si kale haddaanu tilmaamo adduunka aynu ku noolahay waa meel loogu talagalay in laynagu itixaamo waa meel cidhiidhi iyo dhib iyo wax ku cadhogeliya ay buuxaan waana waxyaabaha jannadu ay kaga gedisantahay adduunka jannada ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa laa yamasuhum fiiha nasabun inaan wax dhibi dadka haleelaynin oo dhibi ku soo gaadhaynin lagana soo baxaynin bale inaada eray ku dhibo maqlaynin laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiiman ilaa qiilan salaaman salaama amaa adduunku waa mucaanaa waa mashkilad waa rabshad ilaahay baa qur-aanku leh laqad khalaqna alinsaana fii kabad qofka bini aadamkaa waxaanu ku dhex abuuray beer xanuun baa la leeyahy yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaqiih haddaba maadaama adduunku mashaakilkiisu tiro badan yahay waxa isweydiinta leh waxa weeyaan qofku siduu ula kulmayaa adduunka iyo mashaakilkiisa qofku markuu naxo ama boqo ama warwaro ama farxo ama rayreeyo farxadda iyo rayrayntaasi ama baqaha iyo murugada iyo urugadaasi ama walwalka iyo walaaca qabanaya wuxuu wax ka beddelaa hormoonnada jidhkiisa iyo qofku siduu u fakerayo maalan qofku marka cabsi badani ku timaado waxaa ku dhaca qanjidhadiisa qaybo ka midi waxa ay soo daayaan hormoonno ama muudad dheecaamadaasoo central nerve systemkaaga ama dareemayaasha guud ee qofka bini aadamku uu leeyahay awaamir siiya oo tilmaamo markaa maalan qofku in dhiig garaaciisa uu dheereeyo daqdiga damiku inuu kor u kaco beerku inuu sukar badan soo daayo muruqyada in dhiigyo badan la siiyo caloosha in dhiigga laga joojiyo dheefshiidkaba shaqada ay joojiso waayo qofku inuu ama dagaalamo ama cararo ama ayaa jidhka loogu talagalay sidaa daraaddeed waa inuu helaa muruqu sonkor badan oo burburin karo si uu shaqo badan u qaban karo waa inuu helaa dhiig badan oo soo gaadhi kara naxdinta aad naxday markaa waxay beddelaysaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay farxadda aad faraxdaa waxay beddelaysaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay murugada aad murugootaa ama walaaca aad walaacdiya walbahaarka iyo warwarka kugu dhashaa wuxuu beddelayaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay stresska qalaq iyo idiraabka qofka ku dhaca wuxuu beddelayaa jidhku siduu u shaqaynayay ilaa xad ay dhici karto jidhku inuu qaado sababaha daraaddeed xanuunno badan oo xataa biological ah oo uu ka mid yahay gastritiska xanuunadan gastriga la yidhahdo wax kan inta ugu badani stressiskan baa keena warwarkan iyo walbahaarkan qofka ku dhaca baa keena waxaa ka mid a xanuunno beer xanuuna waxaa ka mid a xanuunno badan oo qofka bini aadamkaa soo haleeli kara darisku markaa wuxuu yahay sidee loo daweeyaa xanuunadan tirada badan leh qofka bini aadamkaa ku dhici kara sidee loo daweeyaa warwarka iyo walbahaarkase maxaa u dhaxeeya xadkee markay gaadhaa buu noqonayaa ikti'aab xadkee buu weli xusniyey sadness inuu yahay laakiin aanu xanuun gaadhin markuu ammaanan yahay markaanu ammaanayn ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofka mu'minka ahi taacaad iyo cibaado loo baahnaa inuu qabto uu qaban kari waayey inuu ka murugoodaa wax bannaan inay tahay bal ee la ammaanay oo qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa koox nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dagaalkii tabuuk oo aan haysanin waxay raacaan ama ku dagaalamaan oo nebiga weydiistay
waxay fuulaan inuu siiyo awr iyo gaadiid inuu siiyo ay ciidanka ku raacaan oo dabeetana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma hayo wax gaadiida iyo waxaan idinku qaado toona ma hayo oo iyagoo ooyaya nebiga ka tegey murugo ay ka murugaysan yihiin inay jihaad ay nebi maxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam inay ka baaqdeen ilaahay baa qur-aan soo dejiyo leh walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamc xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun kase la diidan yahay ee aynu ka warrami doonnay xanuunadanna keenaa waa kan adduunka ku saabsan inta badan xoole aad weyday caafimaad aad weyday mushkilad kuula kacday waalid kaa dhintay carruur kaa dhimatay dhibaatooyinku soo gaadhay ka yimaada waa ka ilaahay leeyay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw cala maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum الأسى هي الحزن ربي وحولي سبحانه وتعالى وحي إذن هليلة مصيبة الدنيا دا كوركي دا يدنكو هليلة أما نفتي إنها هليلة وحي هاي وحكو قرآن كتابك الربي وقدر كيسا كمدا سيدنا وحا الله سيقرأي لكي لا تأسوا على ما فاتكم سيدا نغمرو قونين أما إذا نغأور حمونين وحي إذن دا فيبا ربي ليه سبحانه وتعالى إذن حزنك قاركي هو شيء محمودة أما الله أماني حزنك قاركينا هو شيء مذمومة أما سلعايي نبي عليه الصلاة والسلام وحاوت الماما يا أحاديث بدن مرغوين صومري مرغوين كمثلا قاركو كوبان هدينو كتل مامنو sida xadiidka bukhaari warinayo kale markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu taa'if qabtay reer maka markay diinta ka dhagaysan waayeen ee uu raadceeyey meel kale inuu tago oo bal diinta lagaga dhagaysto ee reer taa'if thaqiif uu tegey ee reer thaqiifna ay dumar iyo carruur iyo wax magarata ku direen dhagax lagaga soo saaray ee nabigu isagoo dhiigu ka daaya haddana dib uga soo noqday ayaa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وأن دقاقي بو النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول مرغيسا حقي وجهي وجهي وما نسقى دقاقي بو النبي عليه الصلاة والسلام ما نسو براروجين أما ما نسو سوكعين أما سو وحمان قرنين إلا يعني قوم مريا مويانا ما شاء الله إذا قرن الثعالب مركان مريا صعد كيوم بين سوق هذا يبون النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرقدي هيسين النبي عليه الصلاة والسلام مركاسان مدح كورو قاضي يبوي مركاسان كي ملك الجبريل وكور كيجا تاجن ودبتنا اللي يجريو والله فريين ملك بورها إلهي وصدري وهدي والربا بورها كان ربي انتو جويين كورك لجا ساريو دولك كان أو نبونا عليه الصلاة والسلام ليي ما يولي الرجان قبا وحنكر رجا قبا دبر كودين إلهي كسو ساره كو إلهي عابد قال قالت بور الحج على قبا ولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز وحلي وحن رجك قبا دبر كودا إن الله كسو بحيو قال ربي عابده وحكم إذا مروغين كي نبي قصوا مريم هدين قارك لك المامنو markii al-Isra wal Mi'raj ku dhacay ee uu soo noqday ee Quraysh ay imtixaantay ay beeniyeen ay yiraahdeen waxba ma adarag ee uu nabigu u sheegay inuu intaaba soo maray ayaa la yiri bal way su'aalan ku weydiinayna ka jawaab su'aala la weydiinaya waxa weeyaan Bayt al-Maqdis iyo albaabadiisa iyo xaq uu kala jeeday nabiguna dahabeen buu soo galo intuu ku tukaday Ilaahay ka dheelmiyay markaas baan kurbaday buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam su'aalaha la weydiinayay iyo meeshii aan waxba ka xasuusanin إلهي سبحانه وتعالى وكشفيه مركاسي دبتنا وحبها عبسن باليدو وحي ويدين يم بس يدو دانو أركاب النبي عليه الصلاة والسلام كوها يكوى الله مدي وحي تلمام يان قفكو إنو مروغون كرو لكن تانا إنو كور رمينا كوى ماها تانا إنو كور رمينا وحويان واتو حنونة أو قفك حنون قارسين كرتا حنون كاسي wadna xanuun buu isu bedeli karaa dhiikar buu isu bedeli karaa romatism buu noqon karaa
قرحة المعدة على الحنون بالنقن كرا إن حتى سنكروا قال شيء نقن كرا وحن نقن كرا حنون هذا صرنا نقار كم إذا واحد صبابي كربا علماء دو يدهدان ورور كيه والبهار كمركا وحدك وقاعدوا درسكم مركا وحكو سابسيسي محا علاجه ورور كيه والبهار كاسي والله بالنوع نوع مركا هربا وحكينا wax biological waxaan uga jeedaa waa xanuun depression kan qofka ku dhacay waa xanuun marka dambe isla hadal iyo waa la gaadhay laakiin xanuunkan ku dhacay mararka qaar kood culimada qaar baa waxay leeyihiin wuxuu ka iman karaa jidhkiisa khalal u shaqeeyay ama heredity dhaxaltooyo hore ha noqdo oo family iyo caa'iladu ay lahayd ama ha noqdo bay yiraahdaan mesela alghudda daraqiya qanjidhkan halkan ku jira oo dhacaamo badan soo daayo oo dhacaamadii loo baahnaa aan soo daynina khalkhal ku dhacay ama ha noqdo qofka vitamiinisku B12 iyo wixii la mid ka yaraadeen kuwaasi waa dhan waa wax daakhiliya laakiin waxay yiraahdaan kanaynu inagu ka warramaynaa kamaha waxaynu ka warramaynaa waa wixii ka yimi asbaab khaarijiya asbaabta khaarijiga ay ka timi markaa waxa weeyaan qofka mashkilada ku dhacday qofka oo warwar galay qofka oo musiibo intay ku timi musiibadii xijin kari waayay xanuun bay dhashaa marka dambe waxaynu markaa soo bandhigaynaa cilaajkaynu ka warramaynaa uu yahay أحد العلماء المسلمين دكتور عبد الله الخاطر وارد الله ونحرسته وطبيب نفسي أنا ها نشاقنا ها رسالة وقري والحزن والاكتئاب لا يدعضه إيه علماء ذاك لا وحي كردية بين صابرينا دوني ده حنون كان يوحي ما أنت كمدي حنون هذا وقت رضا بدل له حنون هذا سايكولوجيكال كما سايكاتري اسكوبوقة صومالي أنت بدك تشوف تايم كبوفس بين هذا qofka hebel boofis baa ku dhacay xanuunadan isla hadalkii warwarkaahi waxay ka mid yihiin xanuunada dunida ugu tirada badan leh walidaalka waxa la tilmaamaa Yurub oo kale afartii qof baa qaba bay yiraahdaan afartii qof ee kasta Yurubiyana mid baa liqa daawooyinkaasi loo liqo xanuunada nafsiga waxaad baahidooda ka garanaysaa axad ducaat sacuudiyiinta wadaadadan ducaada mid ka mid ah buug yar qoray oo bixiyay la tahzan waxay dhahdeen waa buuga ugu tabcad badan ee af carabi ku qoran 3 milyan oo nusxa laga iibsaday wadaadkiiba halka buug buu ka taajiray la tahzan ba buuga la yiraahdaa waxay isweydiinta leh dadku haddaana ay xanuunka wada qabin ama baahidan itmiinaankii baa la waayay weeyaan dadku xasiloonidii iyo deganaanshihii qalbiga ahaa lumay markaasaa warwariya walbahaar adduunyo israaciskan baana intiisa badan keenay maxaa cilaaja baynu leenahay marka maxaa dawaa ugu horreyn waxaynu leenahay kitaabka qur-aan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba uu ku soo arooray wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi wuu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laazima aanu ku dhacaynin insha allahu tacaala kaa khaarijiga aynu ka warramayno waxaa kaloo ku soo arooray wax la iskaga daweeyo oo qur-aan iyo xadiid ba leh dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn caalamulislaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada warwarka iyo walbahaarka ku saabsan iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay sababtu waa maxay sababta koowaad waxaynu leenahay waa masalatu alqadaa'i walqadar qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa walqadar wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisa iyo wixii uu qoray wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd waana ka nebigu le calayhi salaatu wasalaam waclam ana alumma low ijtamacat an yanfacuuka bishayin
lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak dad oo dhamme hadday isu tagaan oo rabaan inay ku anfacaan kuguma anfici karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane hadday isu wada tagaan oo rabaan inay ku dhibaanna kuguma dhibi karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane waataynu aayadda hadda soo akhrinaynay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wixii balaayaba dhacaba ilaahay yidhi horaan u qoray waana ilaahay agtiisa wax ka fudud maxaa sidaa loo yeelay likay laa ta'saw calaa maa faatakum baa ilaahay leeyay si aydan uga murugoonin oo uga warwarin oo uga walbahaarin wixii idin dhaafay walaa tafraxuu bima ataakum sidaydan ugu kibrin oo u qooqin wixii uu idin siiyo hadduu ku siiyana inaad aayar ilaahay u mahad celiso waanad qooqin berriba way lumi kartaaye haddaad weydana inaad waxba murugoonin waad tidhaahdaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay aad mahadiso subxaana wa tacaala idan waa dawo qofka mu'minka ahi caruur ka dhimatay xaas ka dhintay shaqo uu waayey makaano uu waayey warwarkiiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo in western society wadannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dad aba isdila waayo boorsadii baa khasaartay uu lacagta gashaday dabeetana waxaa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah sababtu waa maxay boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta markabu soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midubaabay noqotaa inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide iyo in waali dhakhtarka lala dhigo ama qofka muslimka ah inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayey ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray dabeetana wax weyn kuma noqoto alqadaa walqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qofka mu'minka ahi wuxuu rumaysan yahay wax kastoo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan aan lahayn wax qiimo leh markaad weydaaba dee la naxaa laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث إمام الترمذي ورنا الشيخ الألباني صحيحة كنت المامية أدون دما انتبه إلهي أكتي هدو قرب كان يعكل لقيا كان يعلق قيبية كان يعانا وفايدة لعين أيا هدنا لقيب قيبية وحلت المامي قرب كيت أدون دما انتبه ليلة هدو كان يعقرب كيت إلهي أكتي كتشوغو قيمين تالك هدو كلي هاي قال كوبيا كما سيين باليري قال لقما ورابيه إذن قفك مؤمنك وحو الرميسيه أدون كوبا قيمة لو ورورو وحا قرب كان يعكا يردي الله ما واشو سادر أدد قفك مؤمنك وحو الرميسيه آخره ولذلك من النبي وحو عليه الصلاة والسلام حديث كلا إمام الترمذي ورنا سنة الشيخ الألباني صحيح كنت الماميو من كانت الآخرة همه نك ورور كيسو آخرية هي إلهي سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه إلهي غني نمديس قلبي سيالا غني نمد هو قلبك ما هك عنت وحا كجرا قعنت وحا كجرا مرر بدن إيمان لان بابا لغا سيقادا هنغوري سو الدنيا ما وقيت كبليان كايستا بليان كلو رادين يادي بليان كيسو ما موقضه قفك بني آدم كي انت بدن انت قعنتي سكجرته iyo mashruuca uu ka fakarayo mar kasta mashruucu ka fakaraya weyn haddaad $1,000 haysato waxaad ku jirtaa project $10,000 baad wadwadaa markaasaad sileedahay talow sagaalka kale yaa ku dara waa dukaan aad u fiican baad dhigan lahayd ka 10,000 haystaa mashruuc 100,000 ku jira ka mashruuca 100,000 haystaa wuxuu wadaa mashruuc milyana idan qofka bini aadamkii hantida jeebkiisa ku jirta marnaba kuma filla وإلا دتك أنت دركتها ويسكت سيحان لا يددي كله تكفلن يهاي تبدأ بورا الله وروحي عن عون الله أنت كرد من يوان استاي وان وسك فرسانية بحب الدالي ماي لكن بنادم كوعين كماها
ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحلي إنك آخر همجي ستهي غني نما إلهي قلبي سياله وحي ككلا داتسان ودنا الدنيا إلهي وصوروريا إنك الدنيا همجي سكدك تنا فقر بقى لبضا إنود الله صارابو النبي قولي الدنيا وككلا يا عون وراد عدد بكتيره ما تشوفه إذا قفك مؤمن كآخر الرميسني الدون كان هدو وحكوا يا ما وحدين عمران ما وحكا حمادان وحو الرميسين إلهي آخرة أي كوين تو آخر الراض عيني أحكم ده مسائل كعقدي قفكو إنه يطمئنان قلبي يكون عكينا الإيمان بأسماء الله وصفاته إلهي مقعيدي سي صفات كي سوى ونكسن رمين تلا الرميو مركات الرميسو إلهي سبحانه وتعالى هو الملك المالك إله بقر كه وحول بيسقو هنتين وياه عزيز كه حكيم كائن وياه وحط رميسان تهاي لله ما أخذ وما أعطى وحو كسينا إنه يسقو ليه وحو كا قادنا إنه يسقو ليه دادو أول بوح وما الله ربي كا قاضي ربي كسيه هدنا قاضي قفك الرميسان إنه ربي مالك يهي رميسان ربي إنه حكيم يهي oo wax kasta halku ku suuban yahay dhiga walow adiga aanad markaa ku muuqanin qofka rumaysan rabbigii inuu yahay rahiimun waduud mid naxariis badan wax kasta uu sameeyo adiguna naxariistaadu ku jirto walow muuqaal kan dhow aanay ku muuqanaynin asmaada iyo sifaadkaasi qofka rumaysani dhibaatada ku timaada warwar kuma hayso waayo wuxuu rumaysayay ilaa xikmad la sameeyay قصة خضر يا موسى كوكو لنا قرآن كنت الماميو خضر ويل يربو دلي رب فرين ودلو أقتلت نفسا زكية بغير نفس بموسى كضاد ورما النف باد شيء أنا النف دلين شيء آد وين الله انكرابات لطي مبويلي مركي دم خضر وشرحي وحي موسى وفهم كرواية وحو الشاقي وأما الغلام غلامك فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إن كان ير أن دليبول يا به يهويدي لبقف مؤمنا يهايا وانا يتشعلاين كالقعل كيوهيين وحانو كعب سنيبول إني ويداريان بحقه وقال لما هي مشكلة دا يوغيستان دبتنا ربا الربا وحكا خير بدنا وغفي عن رب السيو ظاهر كوا الماء دنتي والد المهي سكردنتي لكن إلهي سبحانه وتعالى قدرتي سوحا الله تلماميا إن السدني خير كوكوتشرو مركا قفك مؤمن كاي الرميسن إله التدبير كلا دريدا معمولة بيده الكل وحول باقي قعنتي سكوتشران هدنا أفعاشي ساي وضع حكمة يا علمي يا خبرة قصة ليسنتي وحو السميي إن وحسن ينوب الرميسن يقفك مسلم كاي إن أنا وحما كتشر أنا يهين سيدا دراديد ريبو ما أركيه وحاكم ده قفك مؤمن كي إنو الرميسين يهي نلش بينو أركو إنا امتحانت ما دام أركيه نلشو إنا امتحان تهي إنو أدون ويا أمحول ويا مش يجيسو إن ربي النعبي هيا ما يندي بسوء قاردي بل يوحي شيخ النبي عليه الصلاة والسلام حليه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم إلهي يدول هدوش على ضوء اتحامه والله اتحامه يا وحل إيجا بل أنت يا ربي كوكل سوني دقالة لقى اتحامه عرور با لقى اتحامه الدون با لقى اتحامه مشاكل كلا سوء قارة نولشا كهرتي مادة حديث كإمام أحمد باورينية صحيح الجامع الصغير كانوا كيالا وحكم ده نبي عليه الصلاة والسلام إليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل مفهومك وقفك نرشا واركا وحيتهاي ضدك وحا أرد بدن نبي ده انت النبي دب سو غاردي قفي سو غاردي ماله نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت دب سو غاردي قال باك حوق بطي وعداديي oo ka hijroodo baxsaday oo ka daba duulay oo meel cidla uu ku qabsatay oo gaaja qabsatay oo gaaja daraadeed nabi maxamed laba dhagax buu caloosha ku xidhay
من saxaabiya intuu yimi yiri ilaahay rasuulkiisa bal waxaan haystaa gaajada beerku ka qaaday marada saxaabigu isagoo hal dhagax xidhan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam maradu caloosha ka qaaday saa laba dhagax baabu nabi maxamed xidhan idan gaaju soo maray oo ciil gaaleed buu soo maray oo dib buu soo maray oo dagaal buu soo maray oo wax walba soo maray anbiyada kale quraanka ilaahay kaga waramayana sidoo kale bay haay ولذلك ما إلهي القرآن كوحو كليه ضدك بوحو امتحان بدنا النبيده ثم الصالحون كوا ونكسن باكوحيقة ثم الأمثل فالأمثل بنبوير سيدا يددك وكلا فضي بدي بي مرارك قاركو وكلا امتحان بدي حديث كإمام الطبراني باصو صاري صحيح الجامع الصغير كرواكو قري إذن وحين لأن هي نبو عليه الصلاة والسلام وحلي قفك هدي دينتي سحوق وكتشره بلدا لو كرديا ابو نبي قول امتحانك هداي دينتي سفضيت كجيرنا ولا قفضيديا امتحانك ابو نبي قول عليه الصلاه والسلام اسنا صحيح الجامع الصغير كو قري ارمها سو دمه waxay tilmaamayaan iyaguna inaanu qofka muslimka wax warwargaliya ahayn walidalik balaayooyinka dhaca qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay in ilaahay dambi kaga maydho والنبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث في صحيحين كويالي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب قفك مؤمن كامها لا يشوه دال هي وصب مرض بكانتون مها له ولا هم ولا حزن عفوا وانكفوا معنا نقول وحللي هاي CF 130419 تويوتا واي waxay xanibaysaa dadka laga qaado gaariga lamba baledkiisu yahay CF 130419 Toyota White nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka wixii daal iyo dhib iyo xanuun iyo hammi warwar iyo murugo haleela ama adaa ama ghammi dhib oo dhan mid psychological iyo mid physiological yani qofka wixii haleela ee jir ahaan u haleela xanuunada iyo mashaakilka ku dhaca ama wixii maskaxaan u haleela ee warwar iyo walaac iyo walbahaar iyo tiiraan iyo urugo iyo urxumo ku dhaca miday doontaba ha noqotee qodaxi xataa ma mudabu nabigu alayhi salaatu wasalaam ilaa iyo dambiga ilaahay barka ka maydha marka qofka mu'minka ee rumaysan mushkilada qabsatay in dambi laga maydhayay de kuma keento warwarkaasi inuu bukoodo xanuunsado buufisu ku dhaco ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية انت وحاو سيدير هدو كنا صبرنا هدو كو صبرنا إنما يوفى الصابرون أجرهم تدك الصبر أجر كودا وحن باوو فيني الرب قود isagoo ah baa la yidhi bigayri xisaab mid la koobi karo isagoo aan ahayn waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenay madow oo suuxaysaa u timi cudurkan suuxdimaa la yidhaha qabta waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan suuxaa ilaahay ii bari inuu xanuunkan iga qaado nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad rabtana rabbaan kuu baryi haddaad rabtana waabad iska sabriyo jannaad yeelan waxay tidhi oo xanuunka haddaan iskaga sabro janno ma helaya habaa la yidhi haddaad ku sabrto jannaad helaysa bes ilaahay rasuulkiisiiyo waa sabrayaa bay tidhi xanuunkaygaan iska qabayaa laakiin midh kale ilaahay iga bari marka aan suuxo ayay cawradaydu muuqataa ee inaan ilaahay cawradayda kashifin oo aanay muuqanin intaa un ilaahay ii weydii nabigu calayhi salaatu wasalaam intii buu ilaahay u baryay saxaabadu waagii dambe wuxuu odhan jiray qofka raba qof ahlu janna inuu arko buu ibnu cabbaas odhan jiray islaantaa madoobe halkaa fadhida arag islaantani waxay janno ku mutaysatay waxay aqbashay imtixaankii alla imtixaamay inay ku sabirto iyadoo aakhiro ajar ku raadinaysa imtixaankii ilaahay imtixaamay innaga waxaa laga yaabaa dhammaanteen xanuun yara hadduu inugu dhaco calacalka iyo warwarku inuu inaga tiro bato stress iyo qalaqa inuu inagu rido laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaad iska sabirtid ajar baad leedahay waxaynu sheegaynoo dhammi waxay tilmaam ka yihiin masaladuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min
qofka mu'minka arrinkiisaaba yaab leh buu nebigu yidhi waayo arrinta qofka mu'minka oo dhammi waa wada khayr cid kaloo arrinkaasi u sugan yahayna ma jiro waayo hadduu badhaadho iyo barwaaqi iyo nabad helana waa mahadnaqa haddii dhib iyo mushkiladi soo gaadhana waa sabraa arrinkiisuba markaa waa wada khayr buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacni adduunka intaad joogto waa mumtaxin baatay waxa lagugu itixaamo adigu dooran maysida ilaahay baa doora ilaahay baa kuu dooraya imtixaanku noocuyey adiga waxa ku saaran imtixaan kastoo yimaada noocu doonaba ha noqdee jawaabtii sax ahayd inaad bixiso adigu arday waraaq loo dhiibaa tahay imtixaan la rabo inuu qoro imtixaanku noocu noqonayo dee macallinkaa soo doorto soo qora adiga inaad ka jawaabtaa lagaa rabaa adduunkan adiga waxaa lagu keenay in lagu itixaamo ibtilaa amaana imtixaankaagu noocu noqonayo ilaahay baa doora sidoo ambiyadaba ugu dooray ambiyada qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebiyo boqorra ah oo madaxa oo hanti iyo xoolo la siiyey oo dowladdana haysta oo nebiyana aya rasul nebi sulaymaan iyo daawuud iyo socankaa maaha waxaa la inooga warramayaa nebiyo la addoonsaday oo addoomma noqdayba nebi yuusuf ayaa qur-aanku ka warramaya waxaa qur-aanku ka warramayaa nebiyo la beeniyey oo la eryaday oo caymadoo firdhaday sidii nebi muuse iyo ciddii la midka ahayd waxaa qur-aanku uu ka warramayaa nebiyo dhagaal laga furaystay oo wax kasta isidhi sheega oo 950 sannadood diin sheegayay oo wax soo raaca waaya ilaa qaliilan mooyaane saa qur-aanku u warramayo waxaa qur-aanku ka warramayaa nebiyo xanuun lagu itixaamay nebi ayuub baa qur-aanku ka warramaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyay 18 sannadood buu jiifay ilaa dadba iskaga wada tegay idan imtixaanka adigu dooran maysid imtixaanka ilaahay baa dooraya adiga beej baa kuu soo baxaya ma xoolo noqoy ma maamul noqoy ma bukaan noqoy ma wuxuu doonuu noqonaya adiga beejka kuu soo baxaa la rabaa jawaab saxa inaad ka bixiso hadduu barwaaqiyo badhaadho noqdana inaad mahadnaq iyo shukri kala timaadid oo cibaadadaa la timaadid nebi sulaymaan waa la itixaamo xoolaa lagu itixaamay ilaa iyo mararka qaarkood wuu arkay imtixaanada qaarkood inay garab mareen oo intuu wixiiba laayay uu yidhi ilaahu imtixaanka ii kordhi oo loo kordhiyey imtixaankii oo rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya ku ducaysanaya ilaahu waxaad nimco ii dhibtay inaan ka mahad celiyo ayaan ku weydiisanaya waxaan leenahay markaa qofka mu'minka arrinkiisoo dhammi waa khayr walidaalika waxaan leenahay warwarka iyo walbahaarka iyo walaaca waxaa abuura iimaan darrada qofka aakhiro rumaysani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy akhiru dikra haadimi ladaat war waxaa badisaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ka nolosha macmacaankeeda gooya geerida badiya geeri lama xasuusta buu nebigu yidhi iyadoo nolol cidhiidhiya lagu jiro ilaa way ballaadhataa nolol ballaadhan iyadoo lagu jirana lama xasuusto ilaa way cidhiidhiyoontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar haddaad geeri xasuusan tahay dhadhan badan ma leh biisada iyo macmacaanka iyo intaa isla dhacaysaan geeraa ka dambaysa haddaad gaajo iyo rabshad iyo mashkalad ku soo martayna wax weyn ma aha sawaaba la iska qabanayaaye iminka way kugu jirtaayo way gaajoonaysaa une waxa ka dambeeya sakaraatulmowt iyo dhib kale idan waa haadimu ladaat warwarka iyo walbahaarka wuu yareeyaa qisas badan bay culammadu meeshan ka warramaan laakiin aan hal qiso idin tilmaamo gabadhii saxaabiyadda ahayd ee alkhansaa la odhan jiray waa gabadh jaahiliyadii hore soo noolayd waxaa la yidhi gabay badan may aqoonee 2-3 bayd bay tuuri jirtay waagii hore dabeetana walaalkeed baa la dilay walaalkeed markii la dilay ayuunbaa gabay laga soo daayay gabayga dee dadku waxay idhahdaan marar badan ciilka iyo murugada iyo tiiraanyada keenta gabay baa khansa laga soo daayay waxay ka mid tahay carab marka gabayada qaybta arrathaa la yidhaahdo baroordiiqa gabayada la yidhaahdo af soomaaliga kuma badna
soomaalidu gabayada baroordiiqa la yidhaahdo kuma badna haddaad raadiso wax yar baad soo helaysa laakiin carabta dhaqankoodii aad buu ugu badnaa islaantan khansaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahayd gabayada baroordiiqee carabiba taqaano kuwa ugu badan gabadhii tirisay walaalkeed baa la dilay ilaa xad bay gabayadeedu gaadhsiisnaayeen ay tidhaahdo yudakirnii طuluucu shamsi sakhran wa abkiihi likulli guruubin cadceed kastoo soo baxdaabay tidhi waxay xasuusisaa walaalkay sakhar ahaa cadceed kastoo dhacdaana way iga oohisaa weli waa baryay iyo gabal dumayba sakhar baan ku xasuustaabay tilmaamaysaa walowlaa kahratu lbaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsi bay lahayd haddii lala yahay dad badan oo walaaladood dhinteen oo agtayda ka ooyaya haddaanan kuwa ku sabrayn oo arkayn bay leedahay beri horaaba nafta iska goyn laha ee markaan arkay qaar kaleo walaaladooda la dilo oo oohinun ku gaabsaday ayaan anna isidhi bay leedahay oohin ku gaabso islaantii sidaa ahaydee walaalkeed sakhar waxa gabay la yaqaana af carabiga culuumilbalaaqa lagu daraaseeyo adabkiiyo balaaqada gabayada rataaga ee ugu tirada badan le islaanta leh ayaa islaamtay markay islaamtay bay iyada iyo inimadeedii waxay yimaadeen dagaaladii waaweynaa ee islaamiga xarbi alqaadasiya dagaalkii qaadasiya la odhan jiray ee beershiya dagaalkii ugu weynaa ee iiraaniyiinta lagu jebiyey furuska waa dagaal uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas axad alcashara almubashiriin saxaabo badan in ay la socoto 30 kun oo ciidan muslimiin oo saxaabo badan baa jooga 100 kun oo gaaleedna xagga kale joogaan dagaal adag oo dhex maray waa dagaalkii ugu weynaa ee beershiya lagu burburiyo ayaa muslimiinta dhex maray iyo nimanka gaaleed khansaa 4 wiil oo ay dhashay baa marka kan muslimiin oo dagaalka ku jira hal subax baa 4tiiba la dilay 4tii wiilba waa la dilay dabeetana khansaa baa loo yimi waxa la yidhi wiilashaadii 4 ahaaba maantay go'een maantay shahaado qaateen waxay ku jawaabtay ilaah baa mahad iska leh waxaan si rajaynayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala aakhira nagu kulmiyo nin walaalo ana intaasoo sannadood bay gabiyaysay 4tay dhasho maalin qura wada go'ayna waxba may noqonin maxaa u dhaxeeya waana iyadii uun habartu waa habartii islaantu waa islaantii waxba iskama bedelin waxa isbedelay iimaan islaantu waa islaantii waa qof dumara dumarku way ka depressionka way kaga badan yihiin baa la yidhaha ragga mashaakilka way uga jilicsan yihiin waxaa kaloo la yidhaha qofku markuu da' sii gaadhaba mushkiladda wuu uga jilicsan yihin oo ninka dhallinyaradii waxaa laga yaabaa inuu is idhaahdo weli jaanis baad haysataa laakiin nin 60 sii maraya hadduu xoolo waayo waxaad moodaa inuu is leeyahay noloshu dee waa iska soo gebagabay wakhtigaad xoogsan lahaydna soo dhaaftay way ku badataa baa la yidhaahdaa qofku markuu da'du sii weynaado iyadoo da'deedii soo kortay oo weli gabadhiiya 4 mar laga wada dilay markaasaanay waxba iska bedelin waxay leenahay sababta waxa weeyaan waa iimaanka qalbiga degay iyo caqiidada degtay qodobka koowaad markaa waxaan leenahay daawadaahi waa caqiidada qofku uu si fiican u fahmo qodobka labaad ee dawadaahi waxa weeyaan waa attaqwa waalcamal الصaalix ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay man camila صaalixا min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min qofka camal suuban sameeya ee lab ama dhadig ah isagoo mu'mina falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaanu noolaynaynaa baa ilaahay leeyahay nolol fiican walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun aakhirana wixii ay camal samaysteen baanu ka abaalmarinaynaa nolosha fiicani waa maxay bay yidhaahdaan culimmadu waxay yidhahdaan nolosha fiicani waa nolosha sacaadada iطmi'naanka leh waa nolol sheegaysa deganaanshiiyo inuu qofku deganaado oo aanu warwarin oo walaacin oo walbahaarin taa macnaheedu waxa weyaan qofku hadduu cibaadadiisu fiicnaato dikrigiisu bato ilaahay uu ku xidhnaado alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub ayaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy ilaahay xuskiisa ayaa qalbigu ku xasilaa qofkii cibaadadiisa iyo khayrkiisu bataa u xasilaa waxaan leenahay waxyaabaha keensanaya
in iimaanku in la daweeyo xanuunka kan waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam camalkaas saalixa iyo iimaankaas iyo dikrigaas iyo aakhiro rumaynteedu wax badan bay bedelaan waxaa la leeyahy weli gawaadhaa laga cabanayaa gaadhi CY 71616 oo buluu ah oo karoollo ah oo moodhalladii gaboobay ah halkuu yaallaha laga qaadaa la leeyahay gaadhi CF ah oo 130419 oo caddaan ah oo Toyota ah isagana ha laga qaado meeshuu yaallo qofku adduunka siduu u arko أحد العلماء الصالحين إبراهيم بن الأدهم نين لو رنشري وعلماء واوينيت كمدا سفيان الثوري الرجل وقتها هكمدا أي وحو رنشري باليدي نين كان غير العقل واسل كيسا كذا شيء لكن أدونك يا وحين تسكجه هجرودي وكيمي برجة فوق أيو حجاز يا شام يدل كم بوسكيمي وحيدا هذا وحو هانشري دتك زهدiga ama tasawufka u banbaxay oo ah mid kitaab iyo sunno ku salaysan oo saxiixa wuxuu isku dayi jiray inuu xamaasho isaga xamaalan jiray dushiisu ku xamaali jiray dadku beeraha u ilaalin jiray qoys lacag lu ka dhashay uu iskaga yimi waxaanu ahaabay yiraahdaan nin aad u cibaado badan oo mustajaab dacwa nin ay aimada waaweyn markay arkaan waxay yiraahdaan jalsada uu fadhiyo Sufyaan Thawri markuu soo fadhiisto hadalka uu joojin jiray bay yiraahdaan amiirul mu'miniin fi alhadith ninkii ahaa Ibrahim ibn al-Adham waxa la yiraahdaa wuxuu oran jiray weerihiisa waxa kamid ah wallahi inna la fi ni'ma law ya'lam biha al-muluk wa abna'u al-muluk lajaladuna 'alayha bisuyuf ni'ma ku jiraabulayay ilaahi absidi iyo taa'adi ayaanu ku jiraa iyo deganaanshiyo hadday ogaan lahayn buu boqorada iyo kuwa carruurta boqoradu dhaleen seef bay nugula dirir lahayn laakiin waanay garanayn buu leeyahay waxaan oo nicmo adduun iyo xoolo iyo isku qabsi adduun iyo baabka uu ka tagay waxa la yiraahdaa aabihii markuu dhintay xoolo badan buu ka dhintay dabeetana nin adoomihii kamid ah aabihii ka dhintay oo 10,000 dirham sida ayaa isagoo jihaad ku sii jiray baa la yidhi buu u yimi wuxuu yidhi aabaha uu geeriyooday xoolo badanna uu ka geeriyooday intana waan sidaa 10,000 anna waxaan ka mid ahay adoomihii aabaha wuxuu ku yidhi intuu eegay baa la yidhi adiguna xor baad 10,000 adigu ku tago qaado nabadgelyo aadna isna wuu xoreeyay 10,000 uu sitayna isagu siiyay yani zuhdiga la sheegaya kaas buu ahaa aan adduun qiimo la lahayn kuwaasi waxay ahayd mutma'in alqalb waayo cid bay isma haysanin dadka dunida ku nool iyo waxa gacantooda ku jiriya waxay ka waramayaanba meel dhow bay u arkayeen in dad la xuso may arkayeen waxay arkayeen rabbigood la xuso ilaahay xuskiisa iyo amaantiisa mashquul ku ahaayeen saadaraadad reer nabi aadam waxba kale ma dhaxaynin waa dad mutma'in alqalbiya oo saada ku nool buufis kuma dhaco waxa kamida waxyaabaha buufiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan والنبي عليه الصلاة والسلام حليه قفك كد عيسته اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلهي سبحانه وتعالى وكفر فره وأنا الدعاء دي النبي عليه الصلاة والسلام ولبتن وحيد هذا والدعاء وقائية قفك كد عيستكم وبدعه كقد عيسته دعاء علاجنا وحكم بين حديثك كلاها ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرجا
nabigu calayhi salaatu wasalaam labadan xadiid midna wuxuu leeyahay waa duco wiqaa'iya qofka ku ducaysta kuma dhaco waxa kale midna waxaa la leeyahay qofku ku dhaco ee ham iyo warwar ku dhaco ee ducadan akhriya ilaahay baa ka fujiya ilaahayna dee nabigiisii wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk bima yaquuluun waxaanu ognahay baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso waad xusnigaasi dareemayso waxay ku hadlayaan iyo cayda iyo ceebta iyo waxay kaa sheegayaan daraaddeed laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehayo ku maraya rabbi xamdigii kuwa sujuudana ka mid noqo rabbigaana caabud inta geeriye kaaga imanayso taas baa ah ama weedhihii nebiyullaahi yuunus uu lahaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waxaasoo dhammi waxa weeyaan waa waxyaabaa lagu daweeyo waxaa ka mid a bay culammadu yidhaahdaan inaad xasuusato adduunka aad ku nooshay dhib kastoo ku haysata mid kaa dhib badani inuu jiro qoladani cilaajka nafsigaa samaysa culimmadan psychologiguna waxay yidhaahdaan waa cognitive bay yidhaahdaan therapy waa qofka in la qanciyo amase inaad rumaysato aswa ilixtimaalaat qoladan dadka dawaysa psychiatriga iyo psychologigu dadkooda buka intay isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa dabeetana mid walba waxaa la idhaha dhibtii iyo mushkiladii ku qabsatay ka waran markay isaga warramaan qaarba qaar bay arkaan dabeetana qof baa wuxuu is idhahaa warile adiga waxba kuguma dhicina kuwanbaa balaaya qabsatay midba markuu mid kale balaayo kasii weyn ka warramo waa ariiq ay u cilaajiyaan dadka mardaaga ah ee ikti'aabku depressionku hayee loo keeno nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inaynu eegno adduunkan markaynu ku nool lahay dadka kaa liita saxaabadii u soo cabatay wuxuu ku yidhi khabaab ibnularat markuu u yimi ee uu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nafti baa laysugu kaayo keenay ee maad ilaahay noo baridid maad ilaahay hiil iyo guul noo weydiisid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war dadkii idinka horreeyey midkiibaa inta la soo qabto oo god loo qodo lagu rido oo miishaar halka laga saaro ayaa laba loo kala goynayay waxaasina diintooda kamay celinayn yacni idinku waa iska nooshiino un waaba laydin yaro cadcadaadiye kuwa kan labaa loo kala goynayaa maadaama laba loo kala goynaya aanay diintooda ka celinaynin adigu de waa inaad intan yar u adkaysataa dabeetana markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay rabbi diinta tan wuu dhammaystiri ilaa iyo sanca qofku uu ka yimaado ilaa xadramoot isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale ka baqaynin masaa'ilka aynu tilmaamayno dhamme waxay sheegayaan in qaabka loo daweeyo qaabo badan ay yihiin waxaa ka mid a baynu leenahay waxay gaaladu u yaqaaniin peak theory oo ah noloshu weji kastoo xuno ay ku tusto weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto inaad ka eeginoo qura dhanka xun ama si kale haddaynu u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka kaa hooseeya eeg unduruu ilaa man huwa asfala minkum haddaad adgu xanuunsanayso mid kaa xanuun daran unbaad arki haddii faqri ku hayo mid kaa liito kaa faqri badan baad arki ha eegin inta ku dhaanta ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato dee weli c f yadiinii baa socda ee gaadhiga c f 124209 oo masda ah iyo gaadhiga c y 132940 oo nisana labadaba meeshii qaayaalin ha laga qaado fadlan gawaadhida ayaan lagu dhimin bini aadamka kale adan naasi ma bannaana marka baabuurta deriskaa iyo guryaha deriskaa iyo meelaha aan baarkinka ahayn ha dhiganinee meel hagaagsan dhigta yacni waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato maalan qofka aan hantida haysan waxa laga yaabaa inaad aragto mid aan hanti haysan
oo caafimaad qaba laakiin haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay maxaan caafimaadka ku haystaa derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaaye wuxuu arkaa inaan waxba qabin cagsigiisa waxaa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo oo dham isugu timi wixiisii wax ka liqi kari la oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaha waxaad haysataba keen waa lagu caafimaadinayaa ogol hadduu kan caafimaadka qaba waxaa layna yidhi bal kuwa buka soo egtay hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo waxa nin liita iyo wax mid maalqabeen aha naftuba haysato uu arko dadka hadduu waraysto yidhaahdo war bal warrama waxay odhan lahaayeen waxaanu haysanno caafimaad waa siisan lahay markaasuu garan lahay in taaj saaran yahay laakiin aanu arkaynin waxay idhahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale adigu waxa laga yaabaa inaad dayrinayso leedahay maxaan haystaa waad si caafimaad qabtaa waxaad haysataa caafimaad idan nolosha gebigeeduba oo sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata bale dhibaatadaa dhib lagu daweeyaa hal qisaan idin tilmaami doonaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii badar dagaalkii uxud way guulaysteen markii hore gaaladiina way jabiyeen way kala caymadiyeen waa kala carartay haniimadii iyo wixii bay gurteen iyagoo haniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhibtu dhacday ee saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaadda ahayd inta iskaga yimaadeen is idhaahay haniimada wax ka gurta khaalid oo gaalada la socduunbaa meel godoloola arko xagga dambuu soo maray muslimiintiibuu dhabarka kaga soo dhuftay mar labaad baa muslimiintii la jabiyey muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxaa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo dib loo caymadiyo ay kala cararaanba saxaabada badh baa firdhadkii madiina galay taa waxaa kaga sii daran iyadoo mushkiladdu halkaa marayso ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyey la leeyahay nebi maxamed baa la diloo laga takhallus intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana markay maqleen nebigiiba wuu dhintay ayay iska fadhfadhiisteen ilaa sacd ibnu rabiica axad saxaaba uu soo maro cumar iyo rag meel fadhiyuu yidhaah war maxaa qabanaysaan markaasay dhaha maxaanu samaynaa dee nebigiiba la diliyey aadana uga xumaa sheekha inaan microfonka ka qaado saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahi subxaana wa tacaala siduu u daweeyey buu ka warramaya markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba fadhfadhiisteen ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay waxaa rabbi tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي واحد حسطان مركزي يا عيسين بالليل النبي قاعد يبدي بسوء جينين النبي قلنا حق الدنبي يدين كي يريي ربي وحلي وحو يدين كأبال مريه فأثابكم بالليل غما بغم murugo kala dul saaran baa laydinku abaalmariyay culimmadu waxay yidhahdaan murugada labaad waxay daawo u ahayd murugadii hore waayo fij'atan baa la tasxiix culamaa'i nafsi aayaddan markay sharxaya waxay leeyihiin saxaabadii markii hore way jabeen waa murugoodeen oo haziima ku dhacday mar labaad bay haddana murugoodeen markii la yidhi nebi maxamed ba dhibay tii hore waxay ku ilaabeen tan dambe oo nebigii baa dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam mar qura fij'atan waxa cadaaday ina nabi maxamed dhimana uu dagaalka joogo goobta taagan yahay dabeetana waa farxeen farxaday nabi maxamed ku farxeen waxay ilaabeen wixii hore oo dhan idan labada ghammigii hore haziimada waxa ilowsiiyay baa la leeyahay ghammigii dambe aan nabigii dhimay markay been noqotayna dib bay u farxeen waxa laga daweeyay xusnigii oo dhan walidaalka baa ilaahay leeyahay likay la tahzanu ala ma faatakum fa athaabakum baa leeyahay ghamman bighammin maxaa loogu abaalmariyey ghammiga dul saaran likay laa taxzanuu calaa maa faatakum baa ilaha yidhi si laydinka masaxo tii hore oo wixii hore a idinku dhacee mashkiladaha a u ilowdaan idan balaayooyinku way ismasaxaan iyadoo balaayo ku haysato mid kaa daran haddaad aragto taadii waad ilaabaysaa
adigoo balaayo ka badan rajaynaya hadday yaraato maalan gaadha kula qallimay adiga iyo afartaadii carruuraba aad mi yar baashay hadhow baad soo mirowda bal warrama baad tidhi markaasaa lagu yidhi yararkii labaa dhintay waxaa laga yaabaa inaad tidhahda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waayo waxaad lahayd afartiiba tage laakiin markaan laba qura waad ogashay haddii lababa soo hadhay ilaan halkaad joogtay aad ka fakaraysay waxay ahayd inaad afartaba weydo laakiin haddii lagu yidhi war labaa weli kuu nool waxaa laga yaabaa inaad u aragto musiibadu inay khafiif tahay idan masaa'ibtu waxay yidhaahdaan culammadu badhba badhka kale waa lagu daweeyaa walidaalik baa waxaa la leeyahay war dadka kale dhibtu haysta arka waxaan ku soo koobaynaa wakhtigii oo dhammaadaan malaynaya wakhtigoos ka yar daraaddeed waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha wax lagu daweeyo waxaa ka mid ah xusnu dan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba uu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baad tagtay dhakhtarkii baad hore weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo ma rabo wakhtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydaeyo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacyo aanu meeshaba soo gaadhin waxaa laga yaaba xusnu danni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidalik baa ilaahay wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adann ina bacda danni iimun waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baa waxaan idiin tilmaamayey axad saalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto dee marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalhayo waxaasay kaa sheegsheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii wuxuu idhi niyo waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kuga abaalgudaya hadiyadda tan qaada buu yidhi xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayay waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi-aadka idan haddaad si fiican u fakerayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mida baynu leenahay qofku inuu garto amal ina maca alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaanah wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed xusniga iyo igti'aabku marka hore qofka muslimkaa waxa keena inuu ka dheeraado oo haddaad towxiidkaaga iyo caqiidadaada iyo diintaada si fiican u rumaysato adduunka iyo qiimihiisa si dhaba u fahamtid aakhiro iyo waxa dambeeya abaalmara si wanaagsan u garatid imtixaanka rabbi iyo qadaa iyo qadarkiisa iyo adiga inta kaaga soo hagaagtay si wanaagsan aad u fahamtid tiiraanyoon maysid wax kugu dhacay ka tiiraanyoon maysid laakiin qof kasta uu xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga ahi waa dhakhaatiir wax daweeya waxaynu qaacido soo sheegnay way isticmaalaan zaa'id waxay kaloo isticmaalaan dawo zaa'id qaarkood waxay kaloo isticmaalaan kaharaba electrical shock midna ogsoonow soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaanaa qarisaa qaarna way sheegtaa war xanuunadu waa isku mid haddii wadna xanuun kugu dhaco iyo haddii beer xanuun kugu dhaco iyo haddii neerfu ku xanuun iyo hadduu madaxu ku xanuuna waa isku mid midna adigu maad keenin mid walbana ilaahay baa keena waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid unbaa buka
كودنو حنون يا وحورنا يا وني ودنا حنون يا وليتا كمدو حنون يا سو قرصنا يا وحسنا يا وحل ورن دنا هو شيء هو علي هدو إذا مدح حنون يا كون كل لفتو ده بوفس كسر ريدا يورر يا وروا شيء سكيل عليه ورماها وحنون عادي يقف كبني آدم كاكو دعاء depression kuna waa xanuun xataa haddaan la daweynin qofku si caadi ah u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado laakiin hadduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho waqti yar buu kaga bogsanayaa bidin ilaahi tacaala idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa daawadiisana wuu soo dejiyey ee addoomaha ilaahayow isdaweeya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midna isku eega lama odhan isdaweeya xanuun laga yaabo 10 midho kiniina inaad qaadato inaad kaga bogsan lahayd ayuu qofku qarsanayaa ilaa intuu marada ka dhiganayo ama ka waalanayo ama uu dafiraya isku dayayaa inuu yidhaahdo war ma xanuunsanayo waxaan idinku la talinayaa waa xanuun bini aadamka ku dhaca xanuunada kalena la mid ah kaa calool xanuunku hayo iyo kaa wadna xanuunku hayo iyo kaa beer xanuunku hayo iyo kaa maska xanuunku haya mid walba cudwi ka mid ah jirkiisa xanuunaya midna isaguma keenin mid walibana daawuu leeyahay mid walbana waa la daweyn karaa dhakhaatiirta madaxa daweysaana ma hadda dadka daraguun cabsiiyo oo wax lagu waasho ama wax doqonkaa dhigaya ku siinay war daawo caadiya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii hadday masaa'ilkan khaarijiga iyagu iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakeraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakerto waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaabaan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhahaa sonkorow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhaahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mid waxaad u baahantihiin haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydo iyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad hayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwati fi lcaqiida ugu horreyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee oo ayar dhakhtar tag asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير الجزاء شيخنا الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون بسم الله إن شاء الله تعالى وحن جعلان لي سؤالها إن نقضان سؤال كساب سن موضوع سمر كاسي وهاك سنته الموضوع كساب سن إيو ويس وكان أجوبه لكن وغدا روح السوق ويدعو دربنا يقولي هاي شيخنا مصطفى الله درتي أيام كوجع على هاي هذه أنا يدعي هنوك قد قبل ربي هاي نجعل هذا إلهنا وحن كواذا برينا قفكا ينتهينا كلامين حق الله ينتصه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي وحن ويدي سنة سبحانه وتعالى جتكي نبي محمد مري يا صالحين تي توصنا إذن ربي نوها نونيو كوي الدين تا إسلام كاكو ولا لو بكل رقمنا إلهي نغيره صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاه الله خيرا
su-aasha saaiilka halkan uu kusoo qoray wuxuu leeyahay sheekh waxaan dalkan joogaa muddo 4 sano ah xaaskaygiina waan kala maqannahay muddo maadaama aanan aadi karin ma soo doofin karaa oo dalkan ma keeni karaa muxram la-aan haddiise aeroboortka aan ku kulanno dadka hortooda hab buu ku siin karaa سهل ما بسم الله الرحمن الرحيم Soomaalidu waxay yiraahdaan waxaan caaniyo nabad baahayn waa la kala qaadaa bay yiraahdeen waxaa muuqata dhaqamadii gaalada inay idinku soo dhawaanayaan intaad salaantaada banaanka ku qabsan lahayd guriga la tag يعني شريعة الإسلامية حشود بالينا فري يدو حلال قوة وحلينا فري حشود يوانا جينا نقول قنو يينا اللي قلتهم يسنن نبي عليه الصلاة والسلام يسقوا مسجد كاعتكاف سن أيها هوين تيسكم يدوتمي دبتنا عبار بوشة كيسي مركي دم النبي قصيد ويسيد جوري يدقيه kadib baa laba saxaabi ka soo horbaxeen markay arkeen nabiga iyo gabadha la socda istadbeen markaas wuxuu ku yiri ala raslikuma waxba degdegina waa aniga iyo safiya buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam yani ma hada allah baylayna ilahi rasuulkiisa iyo maadaan ku tuhmaysanayna dabeetana wuxuu yiri shaytaanku bini aadamka wuxuu ka maraa majra dam halka dhiigu maraabu maraa inaan shaydaan qalbigiina wax xun ku ridinayo soo nabi maxamed baa gabadh la socday ayaan rabaa inaan dhahdo waa taan qabay nabi maxamed isagoo aan habsiinin ay isdhinac socdaan ayuu saxaabiga arkay wuxuu leeyahay war waa taan qabay sida ogsoonow marka mawqifu tuhma la isma taago iyadoo xaaskaagiya xishood gurigiina taga salaamu calaykum ya maxay waxa soo saaray qala ضيح ما لا تجي محل ما لا تجي وروح وين كبضنا هضيح عادي لا تجينا يدك تجي ما يسهل دار لا تجينا شغلينا ما هي واحد دينه يدنا فعايس ويدينه السلام عليكم سيدا سيدي لا معنا موضوع كأسئلة زي نقطة أسئلة موضوع وجيه وصعب جزاه الله خير الجزاء أسئلة سيدنا وكلا وحي كفي عن انت لا جمعيه ما دام يسن موضوع علاقات خاصة لهين مثلا ضيع قعمتك ولا تجي كور ديارتي بقى كاشكي له راعي لا دوكيومنتي لا تحريمات ليس هاي جزاكم الله خير موضوع ان شاء الله تعالى أسئلة وحي كفي عن الله هي سيدي حركة الأسئلة دي وجيها ولما ذو يدل هي فكلفت كذا دان جالس هالنواركين ان شاء الله تعالى لكن شيخ كستا محاضرة وبحين أيو سؤال شكو سابسان أيام مهمة له وادرة كل أرضي ولا سوها موضوعي بحو سؤال شكو سابسان أيام اليوم تيجي شيخ سؤال اللي ويدينا إنه أجو مجعليه مركا جزاكم الله خير الجزاء شيخنا أجو ما سيهاي وحاي نوحي دون هذه رد كرار النقطة محاضرة كله وأيضا عنوان كذي هاي حقو كجرا حلقة الصومالية حلقة صومالية حق كجرا موضوع إن شاء الله تعالى دقائق يركدي بيوضح دونا صبرا إسكان مارت إن شاء الله تعالى تسبيح صلاة المغرب وحاول ويسودوا ذهي قبل صلاة المغرب أيام موضوع دونا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري
رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ركبت البحار وخضت الصحارى، وسرت النهار وقد جف ريقي. ويممت شطر الجبال الرواسي، وفي قمة قرب واد سحيق. دعوت الإله تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى من سيرسو عليه اختياري، وماذا سيقود كظل رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ركبت البحار وخضت الصحارى.